السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ku soo dhawaada maanta waxaanu ka hadlaynaa gabadh leeyado Mrs. Sukaina oo u dhalatay wadanka Canada isla markaana ah dalxiise ayaa jeclaatay oo guursatay nin ka soo jeeda qabiilka Maasayda ee dega wadanka Zambia iyo gobollo badan oo Afrikada ka mid ah. Haddaba su'aal la weydiiyay ayaa ahayd waa maxay sababta kugu kaliftay inaad jeclaato guursato ninka? Su'aal la weydiiyay Mrs. Sukaina ayaa ahayd waa maxay sababta kugu kaliftay ama aad ku jeclaatay inaad guursato ninka? sababtoo ah waan jeclaaday waana ka helay ninkayga sidoo kale waa sababta aan u imi halkan inaan la noolaado ama aan nolol aan la wadaago. kadib waxaan la falgalay nolol maalmeedka ay ku nool yihiin. sidoo kale markii hore waxaa igu adkaatay inaan la qabsado dhaqanka iyo nolosha noocan oo kale ah. sidoo kale dadka Maasayda waa dad soo dhaweyn wanaagsan oo aad u qalbi wacan. Su'aal dalxiisahan la weydiiyay ayaa ahayd markii koowaad timi nolosha sidee bay ahayd? taasi waa su'aal adag laakiinse markii aan isku dayo xasuustayda markii koowaad aan halkan imi waxaan yimi gabdhaha qabiilka Maasayda waxay arkeen inaan ahay qof martiya oo cadaan ah oo sidoo kale aad iyo aad bay ila yaabanaayeen. waxyaabahaas waxaa ka mid ah kuushan aan xirnahay qoorta ku xirnahay. run ahaantii waa dhaqan aad u qurux badan markii aad eegtid dadkan macnaha nolosha ay ku nool yihiin. waa dad aad u soo dhaweyn wacan waa dad deegaankooda aad u qurux badan yahay. sidoo kale markii aan arkay dabeecadahooda dhaqankooda ayaan aad uga helay. run ahaantii taasna waa sababta aan macnaha aan ku doortay inaan ninkan aan la noolaado oo aan wada qaybsado. Mrs. Sukaina iyo Stephen waxa ay isqabaan muddo 12 sano ah waxaana arooskoodu u dhacay sanadii 2012 waxayna isku faraxsan yihiin.